wiilka ayaa cabbay biyo badan oo badda ah, balse taas keliya ayaa ka dhigtay mid sii ooman. Wuxuu eegay shabeelkii sii dhimanayay wuxuuna biyo dhan ku shubay afkiisa. Kadibna wuxuu shabeelka madaxiisa ku dhigay laabtiisa isagoo si aamusnaan ah ugu sugaya dhimasho. Ilmo ayaa dhabanadiisa ka daadatay. Waxay ku daafraayeen badweynta Baasifiga in ka badan hal eber maalmood. Laakiin markii wiilku soo toosay wuxuu isku arkay jasiirad yar. Wuxuu si degdeg ah ugu booday jasiiradda wuxuuna cunay midho si uu caloosha ugu shubto. Markaasuu gudaha jasiiradda u sii socday. Wuxuu dhex maray kayn cufan, halkaasna wuxuu ku arkay koox mirqaati ah. Agtooda waxaa yaalay barkado biyo nadiif ah oo qurux badan. Wiilku farxad buu ugu booday biyaha wuxuuna dabaal ugu raaxaystay. Aad buu ugu farxay inuu nool yahay ilaa uu xanuunkiisii iyo dhibkiisii hilmaamay. Shabeelku isaguna wuxuu dareemay farxad badan. Meeshan waxay u ekaatay janno. Wiilku wuu degtay. Silsiladdii uu ka helay gabadhiisa uu jeclaa ayuu ku xiray laangeed. Jasiiraddu waxay lahayd cunto badan, sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu halkaas ku nasto muddo. Laakiin khatar ayaa ku qasabtay inuu ka fikiro 2 jeer. Habeenkii qoraxdu dhacday, mirqaatiyadii oo dhan geedaha ayay kor u carareen sidii wax cabsi geliyey. Shabeelku isna uu dareemay wax khaldan wuxuuna dib ugu orday doonidii yarayd. Wiilku markaas uma uusan degaan, wuxuu sii watay inuu xayawaanka yar la ciyaaro. Hase yeeshee habeenkii waxyaabo cajiib ah ayuu arkay. Kalluun badan oo dhintay ayaa